soo dhawaada barnaamijka gaar ah waanu kaga hadlayno xaruntan iga dambaysa oo ah xarun samafal oo markaasi ay ka socdaan mashaariic badan oo khayri ah oo markaasi la xiriir dhinaca waxbarashada iyo sidoo kale wax soo saarka. Haddaba inta barnaamijkan uu socdo waxa ku daawan doontaan xarumaha kala duwan ee uu ka kooban yahay waxyaabaha ay qabtaan ardayda agoomaha waxa loo qabto iyo sidoo kale sida uu shaqeyso oo dhameystiran. أهلا وسهلا بكم في لجنة أفريقيا للإغاثة ARC. هذه المؤسسة الممثلة للرحمة العالمية. kusoo dhawaada hay'adda samafalka ee ARC oo halkan Somaliland iyo dhulka Soomaalida ku matasha hay'adda al-Raxma al-Caalamiya. Hay'adda waxa la aasaasay sagaashamaadkii xilligaasi oo Somaliland iyo guud ahaanba deegaanada Soomaalida ay ka taagneed mashaqo iyo dhibaatooyin nololeed. markaasi ayaana loo bixiyay qaybta gargaarka ee Afrika. waxaana muhiimadda ugu weyn ay saartaa u gargaarista shacabka Somaliland iyo guud ahaanba ummadda Soomaalida. تحولت المؤسسة من الجانب الإغاثي إلى الجانب التنموي بشكل عام. hay'adda ARC kuma koobno oo kaliya dhanka quudinta iyo gargaarka balse waxay isku dayday inay wax ka tarto dhanka horumarka waxaana ay ka shaqaysay dhinacyo kala duwan oo ay ku jiraan dhinacyada quudinta dhinaca caafimaadka iyo sidoo kale arrimaha bulshada intaba ومشاريع الإنتاجية بشكل عام. runtii waxay jira mashaariic fara badan oo fulino haddii aan soo qabto dhinaca socialka ama arrimaha bulshada waxa kamid ah qaybinta raashinka tababarka shaqaalaha loo tababaro xirfadaha kala duwan sida hooyooyinka loo tababaro ama la baro dawaarka ama qaabka tolista ee wax loo tolo waxa kamid ah gooriyaha oo kale oo inta loo diyaariyo oo loo dhiso isla markaana qofkii la guddoonsiiyo dhinaca kale waxa kamid ah agoontii lagu hayay Hargeysa ama se qaybta boardingka oo tiradooda gaarayso 300 oo wiil iyo 250 gabdhood guud ahaan gobolada kalena way ka hawlgashaa hay'adani sida Boorama Burco sool dhammaan goobaha soo dhan mashaariicda xoogsiga xalaasha ah oo mashaariic loogu tala galay in dhaqaale abuur uu noqdo qoysaska danyarta ah oo ay kaga maarmaan inay maxay ahayd sugaan macaawino la siiyo oo iyagu ay wax la soo baxaan waxa kamid ah mashaariic dukaamo yar yar oo lagu taageero dadkaas waxa kamid ah miiska khudradda waxa kamid ah miiska cuntada waxa kamid ah makiinada dawaarka oo la siiyo dadka iyaguna bartay xirfadda dawaarka si ay ugu shaqeystaan waxa kamid ah toolka farsamo yaqaanka oo isagana la siiyo ardayda farsamada gacanta iskuulada farsamada gacanta ee hay'adda ARC ay maamusho ee ku yaala Hargeysa iyo Boorame iyagana la siiyo si ay ugu shaqo tagaan oo marka ay xirfaddii bartaan toolkii ay ku shaqeysan lahaayeen la siiyo si ay ugu shaqo tagaan waxa kamid ah xoolo qaybinta oo iyagana dadka meelaha tuulooyinka iyo miyida ku nool la siiyo xoolo nool oo ay dhaqdaan oo ay tarmiyaan si ay uga faa'iideystaan. hay'adani waxay qabataa oo ay dadka ugu adeegtaa 4 qaybood qaybta waxbarashada qaybta beeraha oo qaybna ay wax ka soo baxaan qaybna training ahaan loo isticmaalo qaybta caafimaadka iyo qaybta projectska oo ay kamid yihiin
kuwa waxbarashada kuwa caafimaadka kuwa maaragtay loogu deeqo dadka danyarta ah waxyaalahaas oo dhan bay qabataa hay'addu guud ahaan hay'adda waxaa ka shaqeeya shaqaalaheedu waa ilaa 700 iyo wax la jira waxaan dhihi karnaa waa hay'adda ugu shaqaalaha badan Somaliland. qaybtan imka aan gelayo qaybtanina waa qaybtii beerta markaa haddaad maqashaan beeraha loo yaqaano greenhouse-ka ama beeraha la dado waa meeshii ugu horreysay ee Somaliland soo saarta khudaar markaas nidaamkan lagu beeray alaabtan aad arkaysaan iyo teendooyinka waaweyn dad badan waxay moodayaan meel wax lagu kaydiyo oo ama bakhaar ama wax la mid ah laakiin halkan waa beer soo saarta cuntooyin kala duwan iyo khudaar waana meeshii ugu horreysay ee Somaliland markaas keenta nidaamka loo yaqaan greenhouse-ka teendo kooban markaas lagu beeray dhirta taasi waxay keentay in aqoontan iyo farsamadan lagaga daydo meelo badan oo maanta Somaliland ka mid ah iyo dhulka Soomaalidaba arrintan caan ay ka tahay laakiin Hargeysa ahaan ama Somaliland meeshii ugu horreysay markaas soo kordhisay xaruntu markaa waxay ka mid tahay meelaha lagu xisaabtamo khudaarteeda iyo waxyaabaha ay soo saarto halkan haddaan ku sugannahay marka aad gudaha u soo gasho beerahan waxaad arkaysaa halkii teendhaba waxa ku jira boqolaal geed gudaheeda dhirtaasi ma rumaysan kartid sida loo waraabiyo inay tahay dhibco biyo ah oo markaasi aad u kooban ayaa geedka salkiisa markaasi ku dhibcaya halkii meesha oo dhan la waraabin lahaa ama biyaha oo dhani ay sagxadda qoyn lahaayeen geed walba inta uu u baahan yahay oo runtii dhibic yara ayaa salkiisa ku dhacaysa arrintaasi oo ku filan geedku inuu ku noolaado ku soo saara midhihiisa isla markaasina cadceedana laga maamulay oo cadceed ku filan markaasi ay soo deynayaan qaybtan sare markaas waxay ka dhigan tahay dabaysha iyo biyaha iyo cadceed ku filan ayaa geed waliba u helayaa si markaasi uga badbaado in cadceed xad dhaaf ay ku dhacdo ama dabayl ay jiidho ama biyo badan oo aan u baahnayn ay ku dhacaan waana aqoonta ka dambaysa arrinta loo yaqaan greenhouse-ka ama guriga cagaaran ee beeraha hadda loogu talagalay oo xarunta Kuwait runtii ay ahayd meeshii ugu horreysay laga bilaabay khudaarta halkan hadaba ka soo baxda waxa ku tiirsan dad badan oo ku dhaqan caasimadda Somaliland ee Hargeysa sida hoteelada iyo sidoo kale dadka caadiga ah oo si aad runtii ugu xisaabtama wax soo saarka xaruntan ay leedahay جاءت هذه المزارع tusaale ahaan qaybta wax soo saarka beeraha ee xarunta Kuwait-gu waxa ay qayb ka yihiin horumarka beeraha ee Somaliland waxaana ka soo baxa midho kala duwan khudaarta halkaas ka soo baxdana waxa lagu daryeelaa oo lagu nafaqeeyaa agoomaha halkan ku dhaqan sidoo kale dhaqaalaha ka soo baxa qaybta loo iibgeeyo suuqa ayaa waxa dib loogu nafaqeeyaa oo adeegyo kale iyo baahidooda lagu daboolaa isla agoomaha halkan ku jira وأيضا ريعها يعود لصالح الأيتام الساكنين في مساكن هذه المؤسسة. halkan waxa ku aragtaan xoolo daaqaya dabcan looguma talagelin halkan in lagu dhaqo laakiin wax xoolo loogu talagalay markaasi in lagu nafaqeeyo ama loo qalo agoomaha halkan lagu daryeelo oo ay tahay ujeedada ugu weyn ee xaruntan ay u jirto in agoonka la daryeelo oo markaasi waxbarashadiisa caafimaadkiisa cuntadii uu cuni lahaa khudaartii wax walba ay soo saarta xaruntu ujeedada ugu weyn waxay tahay in xaruntan ay noqoto mid wax soo saar leh oo mar walba aan ku tiirsanaanin kaalmad dibadeed maadaama la aasaasay la hirgeliyay la maalgeliyay inay noqoto mid iswada oo afka qalaadna lagu yaqaano sustainable development ama horumarka waara oo ay tahay in agoonka wixii ku noolaan lahaa iyo wixii cuni lahaa xaruntan lafteedu ay soo saarto waa tahay markana waxaan ku suganahay xarunta sifaynta biyaha maadaama xaruntan guud ee Kuwait-gu ay ku taalo meel aan markaas ka fogeyn dooxa weyn ee dhaxmara magaalada Hargeysa dabcan waxay leedahay ceelal biyaha laga soo saaro ceelashaasi biyahoodu waxay u baahan yihiin la sifeeyo si markaa caruurta iyo dadka halkan ku nooliba ay markaas u helaan biyo nadiif ah
oo markaasi isa arkaysan taangiidan waaweyn iyo qalabkan meesha yaallo dhani waxay toos ugu xidhiidhsan yihiin ceelka biyaha ka soo baxaya ceelku waxay maraan nidaamka markaas sifaynta oo markaas jaranjarooyinka kala duwan leh ugu dambayntana waxay ku dhacaan taangigan weyn oo ah marka biyuhu ay soo maraan dhammaan jaranjarooyinka sifaynta oo dhan ayaa waxay ku dhacaan taangigan macnihiisu waxa weeyaan biyahaas waa nadiif waxaana ay qasabadahan markaa u gudbaan qaybaha kale ee xarunta oo biyihii nadiifa lagu isticmaalo sidoo kale beerta ayaa iyaduna lagu waraabiyaa biyahaas nadiifta waana biyo markaas la hubiyey tayadooda ilaa 160 foosto ayaa la sifeeyaa maalin walba si markaasi loo isticmaalo wad garanaysaa baan maranaya waa qaybta cuntada soo saarta gaar ahaan qaybta la yiraahdo roodhida iyo waxyaabaha kale macmacaanka la xiriira sida kan hadaan cunayo kale shaqada ugu weyn ee xaruntani ama qaybtan moofada oo kale ay gacanta ay ku hayso waxa kamid ah in soo saarto qayb kamid ah cuntada ay cunaan agoomaha halkan lagu daryeelo iyo sidoo kale qayb labaad oo magaalada loo iibgeeyo si markaasi ay u soo saarto dhaqaale lagu socodsiyo hadana xaruntan lafteeda oo si ay u joogtoodo hadda halkan aan geli doono waxa weeyaan qaybta farsamada gacanta dad badan ayaa runtii halkan wax ku barta farsamooyinka gacanta ee kala duwan marka aynu eegna barasada u shaqeynayaan alaabtan hadda waa la rarayaa waa alaab la iibsaday xaruntan bay ka soo baxday si toos ayaa loo qaadayaa waana alaab xaruntan lagu sameeyo la iibiyey suuqa ayay u baxaysaa waxaan la kulanay markaas iyadoo la rarayo waana alaab aad u qurux badan dhammaan alaabta gaarigan saaranna waxa ay ka soo baxday xaruntani oo lagu farsameeyey oo waxaa soo saaray dadka xaruntan wax lagu baray ee markaasi loogu talagalay inay farsamada gacanta ay soo saaraan xaruntan ay joognaana waxa weeyaan dugsigii farsamada gacanta ee Kuwaitiga waxa weeyaan halbowlaha xaruntan ay joognay mujammac al-Kuwait al-Khayri dugsigan amba macadkan wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo major ah waxa weeyaan qaybta farsamada gacanta ee training-ka ee sanadka kaliya qaybta academiga oo isaguna 3 sano ah iyo qayb wax soo saara qaybta 1 year training-ka waa 5 warshadood weeyaan waa warshada laxaamada warshada najaarada amba faarada koobatan u naqaano warshada aluminiumka warshada leyrka iyo toogu dambayso ah warshada qaboojiyaasha qaybta academiga waa 3 sano lagu dhameeyaa waa 2 fiil amba waa 2 warshadood kaliya waxa weeyaan leyd iyo qaboojiya qaybta saddexaad oo ah waa qaybta wax soo saarka oo ah waxaan ardayda lagu tababaro oo kadib isku bedela wax soo saar oo suuqa loo iibgeeyo haddaynu ka hadalno warshad kasta goonideeda warshada laxaamada waxay isku jirtaa wax soo saarkii aynu arkayna ku aragtaan video ku aragteen ah biraha albaabada daaqadaha deerarka leexooyinka isku dhex jira ardaydan waa lagu tababaraa shaqadii socota waxa la siiyaa on job training kadib waxa ay ku tababaranayeen suuqii buu tagaa isagoo ah as a product oo lagu iibinayo qaybta kale oo ah najaarada sidoo kale iyadoo hor taaganahay waxa weeyaan waa wax soo saarkii wixii khuseeyay qori oo dhan haddii sariir noqoto haddii ay kabadha noqoto haddii albaaba noqoto haddii ay daaqada noqoto iyo haddii ay fadhiyo noqotoba waxay normal daily life ka ahayd ay soo saaraan oo lagu tababara ardaygii kadibna as a product uu baxaa qaybta ku xigta oo aluminium ah waxa weeyaan wixii allaali wixii khuseeyay gisaasad amba sujaaj amba quraarad khuseeyay oo dhan waayo imika inuu aragnay waxaan u wareegaynaa habkii ah amba systemkii aluminium inuu sheekay ku wareegeen fa ardayda ka wax lagu tababarayaa wax soo saarkii aluminium ka dhan qaybta xigta ah qaybta leerka iyo solarka isku jira waxa weeyaan ardayga waxa lagu tababarayaa dhammaan wixii leer khuseeyo dhan ardaygu by the time uu dhameeyay bartan waa arday fahansan background fiican ka haysta una diyaar ah inuu ka shaqeysto suuqii oo ku shaqeeyo xirfadii uu bartay leerka qaybta ugu dambaysa waa qaybta qaboojiyaasha oo ah qayb ardayga lagu tababaro wixii khuseeyay qaboojiyaan amba talaagada ha noqoto AC ha noqoto kuwii gaadhiga ha noqoto maxaan ku idhahaa maruuxadii oo ardaygii oo laga kaabay waxa soo dhan xaruntan adaba farsamada gacmeedka ah aanu sheegnay ee ah 3 qaybood labada qaybood ee ah waxbarashadu waxay kaabaan oo ay soo saaraan productkii la iibinayo productka la iibinayo oo end game ka ah oo suuqa la geenayo wixii ka soo baxa
waa hab rotation oo ugu soo noqda agoomaha lagu hayo mujtamaca oo profit ka soo baxa loogu talagalay in lagu kaabo ay u samaysan tahay xaruntanina inay soo saarto product ay soo saarto profit lagu kaabi karayo lagu gacan qaban karayo nolosha ilmaha agoonka ee xarunta lagu hayo ardayda halkan wax lagu barayo oo macallimiin ajaanibi ay markaas ay u hagar baxeen waxa la barayaa sanaacadda ama farsamada markaas si korontada la xiriidha iyo qalabka korontada ku shaqeeya sida loo farsameeyo iyo sida guryaha leerka loo geliyo isla markaasina loo habeeyo xarkaha faraha badan ee korontooyinka qaaday iyo cilmiga arrintaasi ku gadaaman waana xarun u qalabaysan in dadka la baro dhammaan qalabka meesha yaalla oo dhan koronto ay ku shaqeynayaan waana kuwo loogu talagalay in markaasi wax lagu baro da'yarta halkan ku sugan waa tahay daawadayaal markana waxaanu ku sugannahay qaybta macradka amaba bandhiga ee markaasi lagu soo bandhigo waxyaabaha kala duwan ee markaasi lagu soo saaro farsamada gacanta ee xarunta Kuweytiga halkan waxaa ku arkaysaan dhammaan agabyada fadhiga ee lagu isticmaalo goobaha nasashada sida guryaha iyo goobaha kala dadweynaha ay ku nastaan markaasi loo isticmaalo dhammaan qalabka halkan idinka muuqda oo ah kuwa runtii tayadooda aad u sarreyso kana mid ah kuwa markaasi loogu jecel yahay magaalada Hargeysa ayaa waxay ka soo baxaan xarunta Kuweytiga ee magaalada Hargeysa oo dadka markaasi da'yarta ah ee farsamada gacanta la baro ayaa soo saaray waxyaabaha halkan ku aragtaan oo dhan halkan waxaa lagu bartaa farsamada gacanta sida tolliinka iyo waxyaabaha dumarku had iyo jeer ay ku fiican yihiin arrimahaasi oo dhan ayaa halkan lagu qabtaa waxaana yaalla dawaaro kala duwan oo markaasi ay yaalaan duntii iyo maryihii kala duwanaa farsamooyin aad u wanaagsan ayaan halkan ka soo baxa oo dadka shacabka ahna dabcan loo geeyo waxaan ahay macallimadii ardaydan dawaarka jarjarka iyo baranaya turista ardayda imika naga baxday waxay ahayd 175 arday oo bartay sida dharka loo jaro iyo sida loo talo qof kasta oo meeshan ka baxaana wuxuu marka uu baxo uu barto casharka la siiyo marka uu barto waxa la siiyaa dawaar uu ku shaqeysto saasaanu ku baxaa qaybtan kale lagu xigtana waa qaybta lagu talo dharka la iibinayo dareyska ardayda iyo wixii kale yani dhisaynadii wixii kale loo baahdo daawada halkan aan ku suganahay hadda waxa weeyaan qayb kale oo kamid ah qaybta hablaha inta badan waxa lagu bartaa cunno karinta oo ah waxyaabaha runtii haweenka ay ku wanaagsan yihiin xaruntanna waxa kamid tahay waxyaabaha lagu barto cuntada sida loo kariyo iyo khibradda markaas qofku uu yeelanayo haween badan oo bartan ka soo baxay ayaa magaalada u shaqo tagay اهتمت لجنة أفريقيا للإغاثة بالتعاون مع الرحمة العالمية اهتمام بالغ hay-adda samafalka ARC ee Somaliland waxaa muhiimad weyn ay siisay hirgelinta xarumaha barashada farsamada cidna kama dahsoona muhiimadda ay leedahay barashada farsamada gacantu iyo doorka ay ka qaadato horumarka ummadaha dawladaha sida degdega u horumaray waxaa horumarkooda loo nisbeeyaa ama qayb ka ah sida ay hadba muhiimadda u siiyaan horumarinta farsamada gacanta xirfadaha iyo sidoo kale warshadaha sidaasi awgeed hay-addan ARC oo kaashanaysa hay-adda caalamiga ah ee Al-Raxma waxaanu ilaa hadda ka hirgelinay Somaliland 4 kuliyadood amaba 4 macad oo markaasi farsamooyinka lagu barto dhismaha amaba hirgelinta kuliyadahan farsamada gacanta waxaanu ka leenahay laba ujeedo oo mid ay tahay in ardayda wax lagu baro mid labaadna ay tahay in la soo saaro wax soo saariyo tayo leh oo qiimahoodu jaban yahay sidoo kalena wax soo saarkaasi waa mid maxalli ah oo farsamadiisa ay ku faanin karto Somaliland maadaama gudaha Somaliland lagu farsameeyay عدد الخريجين macadka farsamada ee Kuweytigu si fiican ayaa uu shaqeeyaa marka la isu wada geeyana ardayda dhamaysatay farsamooyinka ee ka aflaxay waxa ay gaarayaan in ka badan 1500 oo arday markii uu taabagalay macadka farsamada ee Hargeysa waxaanu ku xigsiinay hirgelinta qaybta haweenka ee farsamada gacanta oo isla macadka Hargeysa ka tirsan kadibna waxaanu hirgelinay macadka farsamada gacanta ee Boorame kaas oo hirgalay sanadkii 2017 kadibna waxaanu u qalab qaadanay hirgelinta macadka farsamada ee xarunta Kuweytiga Burco oo aasaaskiisu hadda uu socdo
qaybtan hadda aanu ku sugannahay waa qaybta dugsiga sare sidaad arkaysaanba ardayda ayaa fasalada gelaya waxaana ay markaasi u diyaar garoobayaan bilowga hore ee casharada saaka ay markaasi bilaabayaan waxaanaanu soo gaarnay iyagoo ardaydu markaasi ay safka ku jiraan oo markaasi loo diyaarinayo maalintooda cusub sida ay u bilaabi lahaayeen imika waxaan geli doonaa qaybtii laababka ee ardayda lagu tuso cilmiga oo markaasi lagu camal falayo ama toos loo sameynayo markaa waxaan eegi doonaa horta laabka dhinaca kombiyuutarada oo dhinaca naga xiga cilmiga marka la baranayo waa muhiim in ardayga jihooyin kala duwan laga tuso waxaynu soo aragnay iyagoo fasalkii fadhiya oo markaasi macallimiintu ay si caadiya ay samuurada casharka ugu qorayaan sidoo kale dunidu maadaama casri ay noqotay waxaa kaloo iyadoo meesha ku jirta in ardayga qaab online ama hab kombiyuutar lagu baro aqoonta dhinaceeda kale 22 arday ayaa markii walba la tusi karaa casharada online-ka ah waana isla iskuulka gudihiisii oo qaybta hoosena ay tahay qaybtii fasalada caadiga ah qaybtana ay tahay qaybtii markaasi maktabada online-ka ah laabka loo yaqaano daawada hadda waxaan soo galnay qaybta markaasi laabka ardayda sida muuqata waxaa loo sharaxayaa qaybaha isha bini'aadamka markaasi ay u qaybsanto macallinku si toos ayuu sharaxayaa sidoo kale shaashada wuu ka sharaxayaa macallinku isagoo markaasi ardayda fahansiinaya isha bini'aadamka iyo sida u shaqayso iftiinku meesha ka soo galo sida ay markaasi wax u aragto at the end of Ramadan. When Ramadan finishes, the Eid. waa tahay daawadayaal waxaan ku suganahay mid ka mid ah fasalada markaasi qaybta hablaha hadda waxaa socota xiisad dhinaca ingiriisiga luqadda ingiriisiga ah macallinku waxa uu sharxayaa maalmaha ay dabaal degaan muslimiintu marka hablahan waxay ka mid yihiin kalaasida dugsiga markaasi sare daawada hadda waxaan ku suganahay qaybta ay ku sugan yihiin carruurta ugu yaryar ee keejiga loo yaqaano markaasi barbaarinta ayaanu kalaaskooda ku suganahay sida muuqatana waxaa loo sameynayaa casharo kala duwan xaruntan guud ee kuweytigu waxa ay ka kooban tahay markaasi min waxbarashada barbaarinta ilaa iyo waxbarashada ugu sarreysa ee farsamada gacanta iyo dugsiga sare taasi oo muujinaysa isku xidhnaanta tacliimeed ee goobtan ka jirta sida la ogyahay saynisku waxa uu had iyo jeer u baahan yahay in la xaqiijiyo oo markaasi ardaygu uu si toosa uu markaasi isugu daro maadooyinka una ogaado waxa soo baxay intaasi waa marka ugu horeysa fasalka loogu sheego in maado lagu daray ay soo baxdo maado kale haddaba arrintaasi waxay u baahan tahay laab uu ku xaqiijin kara ardaygu halkan aan fadhiyo waa qaybta markaasi loogu talagalay laboratoryga ama qaybta xaqiijinta sayniska sida chemistryga iyo biologyga dhammaan maadooyinkani hor yaalla waa kuwa xaqiiqa waana kuwa adduunka ugu caansan qaar ka mid ah oo markaasi tijaabooyin lagu sameynayo hadday noqoto xubnaha bani aadamka oo halkan tusaale ardayga laga siiyo iyo sidoo kale maadooyinkan oo ah kuwa chemistryga la xiriira oo curiyayaasha markaasi la isku darayo oo ay soo baxayaan markaasi curiyayaal kale ama isku dar kiimikaad sida loo yaqaano hadda waxaan ku sugannahay qayb kale oo markaas iyaduna la xiriira dhinaca laababka macallinkani waxa uu sharxayaa maado chemistry ah oo markaasi asidka iyo bayska la xiriira arday walbana waxaa hor yaalla miis markaasi uu ku tijaabin karo cilmigan sayniska loo dhigayo daawadayaal hadda waxaan ku sugannahay qaybta hablaha kalaas baa halkan ka socda ama fasal baa la qaadanayaa sida arkaysaan macallinku wuxuu sharxayaa xiisad markaasi ku saabsan dhinaca chemistryga oo sayniska la xidhiidha habluhuna si lamid ah inamada maadooyinka sayniska oo dhan bay tijaabiyeeda halkan ku marayaan markaa qaybtii laboratoryga hadda ku jirnaa
macallin baan xiisadda wada ku saabsan markaas chemistry oo arrimaha sayniska waxaan loo sharxayaa sida markaas culayaasha la isku daro sida ay uga soo baxaan maadooyin cusub iyo sida markaasi maadooyinkaas cusub la isaga sameeyo chemistry iyo sayniska kalaba waxay daawadayaal hadda waxaan ku suganahay qaybta akhriska amaba loo yaqaan maktabadda dugsigu uu leeyahay sida aad soo aragteen markii hore qaybta kombiyuutarada oo ah in ardaygu si online uu casharada markaas uu daalacan karo laakiin sida halkan ka muuqata ardaydu buugaagtoodii ayay akhrisanayaan akhriskuna waxa uu ka mid yahay waxyaabaha sida maalinlaha loo qabto tusaale ahaan xiisadaha qaarkood waxay u baahan yihiin fasalka in la fadhiisto macallinka ay la kulmaan xiisadaha qaarkood waxay u baahan yihiin inay laabka tagaan sidaasoo kale ayaa akhriskuna mararka qaarkood waxa uu yahay waqtigii xiisadda oo kale oo ardaygu inuu maktabadda yimaado oo uu waqti siiyo inuu wax akhriyo halkan waa masaajidka guud ee markaasi ka wada dhaxeeya xaruntan oo ay ku cibaadaystaan ardayda iyo sidoo kale maamulkuba sida hadda idin muuqatana ardayda qayb ka mid ah ayaa markaasi ku subcinaya quraanka kariimka oo qayb markaasi ay u fadhiyaan waana inta badan goob cibaado oo ardaydu markaasi ay ku cibaadaystaan iyagoo markaasi waqtigooda ku qaadanaya akhrinta quraanka iyo dib u eegista casharadii markaasi ay soo qaateen oo markaasi qayb muhiim oo ka mid ah masaajidku uu yahay hadda waxa uu ku dhowdahay xilligii nus saacaha waxaana fursad loo siiyaa ardayda qaarkood inay kubadda kala ciyaari karaan jimicsi samayn karaan sidoo kalena markaasi ay waqti kooban qaadan karaan oo maskaxda ku nasiyaan si markaasi ay dib ugu laabtaan fasalladii iyo sidoo kale waxbarashadii marka halkan waa goob loogu talagalay inay cabaar ku qaataan waqtigooda sida kubadda iyo nasiinooyinka kale kadibna ay fasallada ku laabtaan ardayda basaska waxaa loo diraa salaada hore ilaa 6 ilaa 6:40 waa lagu soo ururiyaa 7 la keenaa iskuulka kadibna 12 la rawaxiyaa markana daawadayaal waxaa ku soo dhawaataan qaybta gabdhaha maadaama ay tahay xaruntu 2 qaybood oo markaasi jidku uu u dhaxeeyo iskuulkan wuxuu ka kooban yahay secondary iyo iskuulkii intermediate iyo iskuulkii hoose iyo qayb KG qayb kale waxaynu leenahay farsamada gacanta oo qaybta dumarka oo hablaha loogu talagalay in lagu baro cunto karinta haday noqon lahayd dawaarka iyo wax weyn qaybo kale oo badan oo courses ah waxay isugu jiraan ardayda in hayno arday agoon ah iyo arday aan agoon ahayn oo agoonta lagu kabo oo wixii agoonka wax weeyaan loogu talagalay ardayda cusub ay doo iman doonta wax weeyaan qaaska ah ayaa dib loogu celiyaa ardayga agoonka dib loogu celiyaa marka tacliintu manhajku waa Somaliland oo wax weeyaan manhajkii dalka ayaa wax weeyaan ardaydu ay bartaan macallimiin kala duwan oo wax weeyaan Kenya iyo macallimiin Soomaaliya iyo macallimiin Carab oo isugu jiraan hay'adan waa qayri hadafkeeda guud waxay tahay in ardayda agoonta ah lagu kabciyo waxbarashadooda haday noqon lahayd xaggii tacliinta iyo haddii noqon lahayd xaggii wax weeyaan tarbiyintoodaba waxaa inta badan kuma koobno qura iskuulkan iyo qaybihiisa kala duwan wax weeyaan Somaliland qaybtan hadda hor taaganahayna wax weeyaan qaybta caafimaadka maadaama halkan boqolaal arday wax ka bartaan xaaladooda caafimaadna ay mar walba u baahan tahay in la kormeero oo markaasi lala socdo xarunta caafimaadkooda la socota ayaa ku dhex aasaasan oo markaasi ku taala gudaha xaruntani bal markaa xaruntan caafimaadka ayaanu eegi doonaa shaqooyinka ay qabato halkan waxa lagu talagalay carruurta baahi degdeg ay ku soo korodho oo u baahan yani in la eego oo haddii matag oo xumad oo de wax degdeg u baahan in laga caawiyo hadda la awoodi karo waayo halkan oo de caafimaad wixii loo sii qoran loo sii qabto laakiin wax kale ka sii badan doonayaan waxa loo xawlay dhakhtarka la yiraahdo international
halkan daawadayaal waa halka lagu diyaariyo cuntada ay cunaan carruurta agoonta ah ee lagu xanaaneeyo xaruntani waxbarashadooda iyo cuntadooda iyo dhammaan noloshoodaba halkan ayaa lagu kafaalo qaaday qaybtan hadda aan hor taaganahay waa qaybta markaasi cuntada loogu diyaariyo bal waxaynu eegi doonaa qaabka cuntada loogu diyaariyo iyo meesha cuntada lagu diyaariyo sida ay tahayba waa goobta ay ardaydu ay markaasi cuntada iyo khadamaadka loogu diyaariyo saddexda waqtiba loogu diyaariyo qaybtaasi waa qaybta jikada ee lagu diyaariyo markaasi cuntada shaqaalaha ka shaqeeyo waa kuwa aad arkaysaan cadadka guud ee ka shaqeeya markaasi qaybtan jikada waxa weeyaan waa ilaa 19 qof marka xataa aan isku daro waxaan nahay 20 wax ku dhow baan nahay ayaa ka shaqeeya qaybtan jikada oo kaliya hata warku waa labadaas qaybood ay markaas ardaydu ay ku cuntaynayaan miis kasta ama liin kasta oo miisasku ay yaaliin ardaydu way fadhiistaan macallinkooga ama mushrifka israafinaya cuntadooda ayaa markaasi la fadhiisanaya halkan hadda aanu ku sugannahay waa qaybta hurdada amaba ay seexdaan ardayda agoomaha ah ee markaasi halkan lagu daryeelo iyo ardayda kale ee boardingka ah ee markaasi loogu talagalay in halkan ay deganaadaan oo ay wax ku bartaan bal markaasi waxaanu eegi doonaa qaybtan markaasi hurdada iyo waxyaabaha markaasi u diyaarka ah ardayda halkan markaasi u hoyda iyo goobta loo diyaariyey qaabka ay tahay waana dhismahan iga dambeeya oo ah dhismo baaxad leh oo markaasi loogu talagalay hurdada meeshan aan joogno sakanka ardayda Kuwaitiga waa meesha ay degan yihiin ardayda agoonto wax qabad xoog leh ayaa ardayda loo qabtaa ardaydu saddex dhinacba ugu waaweyn oo laga qabtira waa xagga noloshooda iyo xagga caafimaadka iyo waxbarashada saddexdaas shay ayaa ugu weyn oo meesha loo aasaasay in uu maaragtay agoonka lagu kaalmeeyo haddii aan ka bilaabo sakanka ardayda meesha ku jirtay 350 arday baa ku jira waxa weeyaan ardaydu waxay ugu nool yihiin meeshan baan idhi sida ay guryahooga ay carruurta kale ugu nool yihiin bay ugu nool yihiin waxaa runtii loo qabtaa xagga nadaafadda aad ayaa looga shaqeeyaa oo waxaa jira haween subaxii usoo shaqo taga sida ay nadaafadooda uga shaqeeyaan barnaamijyada annaga waxaa kow ka ah kolka laga yimaado waxbarashada nidaamiga laga yimaado xalaqaad qur'aaniya oo yoomiya oo aan rabno ilmahani inuu laba dhinac uu ka noqdo qof aqoontiisu ka dhisan tahay si markaasi caafimaadka guud looga shaqeeyo ee dhalinyarada iyo sidoo kale ardayda halkan lagu xanaaneeyo waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah in caafimaadka jidhka la dhiso taasina waxaa lagama maarmaan ay ka dhigaysaa in la helo goob jimicsi iyo garoomo loogu talagalay labadaasiba waa laga helaa xarunta Kuwaitiga waana lagu talagalay halkan hadda aanu ku suganahay waa qaybta jidhiska ee afka qalaadna loo yaqaan jiimka ee lagu jimicsado oo markaasi gaar u ah ardayda halkan ku nool waana mid ka mid ah waxyaabaha xaruntan ka dhigaya mid madadaalo leh oo ardaydu aanay ka xiiso goynaynin saacadaha maalintii iyo habeenkii oo dhan in hadba wixii ay doonayaan ay sameeyaan marka ay tahay xilliyada galabtii halkan oo ah garoomada mid ka mid ah garoomada kubadda cagta ee ku dhex yaalla xaruntan Kuwaitiga waana xarun u diyaarsan runtii kubadaha kala duwan kubadda cagta iyo kubadda laliska ee loo yaqaano gacanta iyo sidoo kale nooc kasta oo ka mid ah ciyaaraha ayaa halkan loogu talagalay in markaasi ay ku sameeyaan marka laga yimaado qaybta kale jimicsiga ee markaasi aynu soo aragnay
halkani waa cisbitaalka International Hospital oo markaasi hoos yimaada hay'adda ARC. المستشفى الدولي ka soo qaad cisbitaalka International ee magaalada Hargeysa ku yaala waxa uu hoos yimaadaa maamulka hay'adda ARC waxaana loogu talagalay inuu qayb ka noqdo horumarinta caafimaadka Somaliland sidoo kale waxaa loogu talagalay agoomaha xarunta Kuweytiga ku jira in lagu daryeelo caafimaadkooda يعود ريعه للعمل الخيري ولصالح أيتام هذه المؤسسة waxaa loogu talagalay cisbitaalku inuu u adeego shacabka Somaliland يحتوي على جميع التخصصات الطبية. Hargeysa International waa cisbitaalka kaliya ee tan iyo markii la furay ilaa iyo hadda ku sifoobay inuu yahay cisbitaalka ugu takhasuska badan guud ahaan Somaliland. Hargeysa International Hospital waxaa Somaliland uu ka abuuray tartan caafimaad oo tayada iyo adeegyada caafimaadka loogu tartamayo taasoo faa'iido u leh dadka shacabka ah. Dr. Yaasir waxa uu sheegay in cisbitaalka Hargeysa International uu bixiyo 13 takhasus oo caafimaad waana ka kaliya ee bixiya takhasusyadaasi ugu tirada badan guud ahaan cisbitaalada Somaliland. waxa uu sheegay hadda inay ku cusub yihiin oo ay hirgeliyeen 3 qaybood oo kala ah qaybta qalliinka wadnaha, qaybta qalliinka dhagxanta kaliyaha gala iyo qaybta sifaynta kaliyaha. Takhasusyada kale ee aanu bixino waxa kamid ah takhasuska qalliinka guud, wadnaha, lafaha, caruurta, haweenka, maqaarka, indhaha, qaybta dheefshiidka, shaybaarka iyo iskaanka iyo takhasusyo kale. Dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalka International midka ugu hooseeya waxa uu leeyahay khibrad 10 sanadood ah sida uu sheegay Dr. Yaasir Darwiish maamulaha guud ee cisbitaalka International. waxa kale oo uu sheegay in gacansaar weyn ay leeyihiin cisbitaalada kale ee Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland. waxa uu waqtiyada qaar bixiyaa adeegyo caafimaad oo bilaash ah iyadoo mararka qaarkoodna banaanka loo baxo oo dadka ay caawiyaan. marar kalena cisbitaalka gudihiisa lagu qabto adeegyo caafimaad oo lacag la'aan ah iyadoo la sameeyay in ka badan 1000 olole oo dhanka caafimaadka oo si lacag la'aan ah dadweynaha loo daweeyay. maamulaha Hargeysa International waxa uu sheegay in adeegyadooda ay yihiin kuwa heer sare ah oo waafaqsan heerka caalamiga ah ee caafimaadka marka loo eego qaliinada culus, qaybta gargaarka degdega ah iyo qaybta la tacaalista dadka aadka u liita ee loo yaqaan ICU-ga. dhammaan adeegyadaasina ay yihiin kuwa ay ilaaliyaan tayadooda oo heer sare ah. dhanka kale Dr. Yaasir waxa uu sheegay in adeegyada caafimaadka ee degdega ah iyo gaadiidka gurmadka caafimaadku ay u dhameystiran yihiin cisbitaalka oo ay shaqeeyaan 24 saacadood usbuuc kasta, bil walba iyo sanadka oo dhan si aan kala go' lahayn. waa tahay daawadayaal, waxaan filayaa in barnaamijkan ay kaga bogateen shaqooyinka kala duwan iyo sidoo kale mas'uuliyadaha ay xaruntani leedahay ee bulshada Somaliland ay u qabato. tan iyo kulan dambe waa MMTV iyo kooxdiisa oo dhameystiran oo idinku dhaafaya nabadgelyo.